niman fallaaga ah oo burcad hubaysan ah ayaa magaalada isku dayay inay qalalaaso ka abuuraan iyagoo raba kaliya inay ismuujiyaan oo magaalada ay cadeeyaan inaysan nabad ahayn oo amni ahayn ciidamada ammaanka ka howlgalay nimankiina hadda sida ugu dhaqsiyaha badanaa lagu soo afjaray haddana waxaa dib loo iyo dhaawacooda dib loo aruurinayaa waxaad dareemi kartaan rag siyaasiyiin ah oo ilmahoodu aysan dalkan u joogin ayaa ilmo dad masaakiina iyo agoon soo xaabiyo ku soo qalday maantay inay magaalada soo hor yimaadaan oo qalalaaso ka abuuraan shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo ciidamada ammaanka oo iskaashanaya ayaa ka hortagay wax aan ahayn inay dad masaakiin soo dhibaan oo halkan keenaan ma aysan soo kordhin haddana magaalada ammaankeeda waa arki kartaan boqolkiiba boqol ammaanka magaaladu waa sugan yahay waana xasiloon yahay ganacsiga waa kala socdaa shaqooyinka iyo iskooladii iyo waxbarashadii iyo ganacsiga waa kala aaday magaalada amnigeedu aad u fadhiyaa kaliya waxa nasiib darro ah nin siyaasi ah oo ilmihiisu ay maxay ahayd dalkan joogin oo aysan maxaa la yiraahdaa dalkan marxalad kasta ku jiro iyo duruufaha iyo abaarta iyo xaaladaha lagu jiro aan ogeyn oo maxay ahayd damaashaadaya in ilmaha dad masaakiina oo dan yar dhaleen ay soo qaldaan maanta waalidiinta ilmahooda la qalday waxaan uga digaynaa inay caruurtooda ka ilaashadaan oo ay ka celiyaan oo ay ka reebaan oo aan caruurtooda la soo qaldin oo aan wax kale oo dhibaato ah maxay ahayd magaaladan iyo deegaanada ay gobolkan loo abuurin oo loo abuurin aan ka digaynaa dhalinyarada farxadka ee xaafadaha ku jirta cadow idinkuma aha waa dalkiinii iyo deegaankiinii waa dadkiinii waa la idin qalday isu soo dhiiba cafis baa la idin fidinayaa gurmad baa la idin fidinayaa dowladda koonfur galbeed baan maxaa la yiraahdaa xaaladaha ammaanka qiimeynaysa oo gurmadkiina cafiskiina fidinaysa laakiin qofkii hub wata ay isku dayeen amniga magaaladan qalalaaso ka abuuro gacan bir ah lagu qabanaa kuwa magaalada dhexdeeda ku jira maxay ahayd maxaa la yiraahdaa ka shaqeynaya propagandada ilmaha u abuuraya ilmaha marasta adiraya ilaahay ka yaabo ilmihiina guriina ku haysataa waxba idin bartaane ilmaha yar oo saqiirka oo maxay ahayd dhalinyarada ah oo aan nolosha wanaagsan haysanin oo maxay ahayd aan waxbarashadii fiican helin oo sida ilmihiinu u nool yihiin aan u noolayn ka daaya ku shubinina dabke ciidamada ammaanku amar buuxay u qabaan shacabka iyo ciidanku iskaashanaya maanta waa arkayseeno dhagaxa looga hortagay dadka shacabka uga hortagayeen ciidamaduna sidii loogu talagalay uga hortagayeen waxaan u ballan qaadaynaa qofkii dambe ee isku dayo amniga magaalada carqaladeeyo wixii ka yimaada mas'uuliyadda boqolkiiba boqol qaadaya saakana meedadkooda dhaawacyadooda yaala meel kasta yaalo ilaa hadda aan guraynaa wiilasha dhalinyarada lama nabca deegaankooda dadkooda ku dhex jiraan cidna cabi ma jirto nin siyaasi oo ujeedo kale la yoodan qaldin inta hadda ay soo dhiibayso soo wacaysana waa soo dhaweynaynaa waana xareynaynaa gurmad iyo gacan maxay ahayd ayaa loo fidinayaa intii la qaldana maxay ahayd iyagana saas oo kale taa soo dhiibaynaa kuwa baadiyaha jira duurka jira maalin kasta la leeyahay soo wactamayo dhahayo waa soo baxaynaa waa soo dhaweynaynaa soo dhawaada khasaaraha maxaa noogu sheegi kartaa gaadiid dagaal iyo waxaan u jeednaa baabuur baa laga qabsaday khasaare ka weyn ma jiro inuu wiil dhalinyaro ah oo maskiin ah ay soo qaldeen been u soo sheegeen ay maxaa la yiraahdaa magaalada dhexdeeda ku dhinto oo ku dhaawacmo meedkii dhaawacyadiyaan si aan u gurna garan la'anahay oo istaalka weyn yaala oo maxay ahayd loo gurmanaya waalidiinta hadhow dhaawac iyo meedka soo raac